Sheeko xigmad leh. Nin ayaa beri waxaa ku dhacday 3 mas'alo oo aad u adag. 3dii mas'alo ninkii wuu qarin kari waayay. Dantana waxay ku qasabtay in uu dadweynihii ama bulshadii ku hareeraysneed uu u soo bandhigo si wax uga faa'iido ama uu fikrad uga helo. 3daa mas'alo waa 3 mas'alo oo aad u adag. Qof walba bini'aadana uu jeclaan lahaa inuu haysto. Bal nala dhageysta sheekada. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaad walaaleyga qaaliga meel walba iga daawanaysaana nabad iyo caafimaad ku daawada. Waa walaashin xushmo oo idinla isku soo noqdo wanaagsan fiideo cusub, aragti cusub, muuqaal cusub. meel walba iga daawanaysaana waxaan idinla ku soo dhawaada channelkayga xushmo niyad furan iyo qalbi saafiya. soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale cusub. muuqaalkeena maanta wuu ka bedelan yahay muuqaaladii hore. maanta karina ma idiin wadno, qurxinna ma idiin wadno. waxa aan idiin wadaa sheeko yar oo aad u xigmad badan. idinkana waxaan rajaynaa inay igala faa'iidaysan doontaan. muuqaalkana noo sii like garay oo noo sii share garay si walaalo kale asxaab kale far badan oo u gaaro. soo dhawaada sheekada sidaan ayay u dhacaysaa. nin ayaa beri waxaa ku dhacday aliira 3 arrin oo aad u adag. arrintii way ku cuslaatay oo ninka wuu qari waayay. waxay ku qasabtay danta inuu dadweynaha ama shacabkii magaalada la deganay oo u soo bandhigo oo arrintiisa ugu waramo bal si uu u helo xal. dadkii waxa ay dhaheen bal noo sheeg arrinta ku haysato. haddii aan kula xalin karno waan kula xalinaynaa. waxa ay tahay noo macnay. wuxuu yidhi 3 arrin ayaa haysato. 3dan arrinna waan qarin kari waayay. maxay tahay ayaa lir arrimaha ku haya bal noo sheeg. waxa uu yidhi arrinta koowaad ee haysato wuxuu yidhi waa dad la'aan. arrinta labaadna waa dunya la'aan. arrinta saddexaadna waa aqoon la'aan ama cilmi la'aan ayaa haysato oo ma ahi qof cilmi leh. waad ogtahay oo arrintaas 3daas arrin qof ay isugu tagtay waxaa haysata arrin aad u culus. qof walbaana wuu jeclaan lahay 3dan sifo ama 3dan mas'alo inuu haysto. kii aan haysanina wuxuu jeclaan lahay inuu juhdi fara badan iyo waqti fara badan uu geliyo si uu ku helo. ninkii waxaa la yidhi 3dan mas'alo ee ku haysato waxa aan kaaga caawin karnaa anaga kaliya nin caaqil ah oo xigmadaysan oo la yiraahdo sheekh. 3 mas'alo oo arrintan xigmadeeda leh ayaan ku sheegaynaa. sheekhaas u tag asiga ayaana ku macnay doono 3daa mas'alo. ninkii waayahay oo yiri arrinta ayuu qaatay. wuxuu gudo galay safarkiisii iyo sidii uu sheekhi ku raadi lahay. ninkii waa uu baxay safarkiisa ayuu sii watay. waxa uu wadada sii socdaba tuuladii ugu horeysay ayuu tagay. tuuladii waxa uu kala kulmay arrin la yaab leh oo asiga ka fajacisay. waxa uu arkay dadweynihii magaalada deganaa oo badeela haysto ama dhulka lagu qodo oo kale haysto oo dhulkii qodayo oo ciid ka soo saarayo. waa uu yaabay. ninkii maxaa ku dhacay karoori dadkan inta leeg meesha isugu soo urur ee haddana dhulkii qodayo. ninkii in cabaar ayuu sugay. isna waxaaba laga soo saaray nin nool ayaa dhulkii laga soo saaray oo ninkii arrintii aad ayuu ula yaabay. ninkii dadkii wareystay war dad yahow bal ii warramo oo yiri arrintiinana maxay tahay saa meeshaan dhulka u qodayseen nin nool ayaad ka soo saarteen. dadkii waxay ku dhaheen ninkan mar kasta sidaan ayuu dhulka ula dumaa oo annagana sidaan ayaan ugu soo saarnaa oo dhulka aanu qodnaa sidaan ayaana lagu arkay. manan garan karna waxa ay tahay macnaheeda. bal adiga noo warano xagee ka timid maxaase ahayd. wuxuu yidhi aniga waxaan ahay nin noocaas 3 mas'alo oo i haysato ayaan waxaan rabaa nin meeshaan la iigu soo tilmaamay inaan u tago oo bal aan u soo wareysto arrintayda iyo xukunkeeda waxa uu yahay. dadkii waxay dhaheen warniyow nin wanaagsan ayaa tahay. haddii aaba ninkaas u socoto annagana bal noo soo wareyso ninkan iyo arrintiisa waxa ay tahay. wuxuu yidhi maad iga daysaan anigaaba 3daydii ku dhib qabee mid kale ha iigu darinaha. waxaa lagu yidhi niyow waxaad tahay nin soconaayo
dhulkana uu la go'aynin waxaan kaa codsanaynaa in bal arrintan iyo mas'aladeeda noo soo wareysata ninka shiiqa markaa u tagto. ninkii wuu iska baxay, safarkiisa uu iska sii watay, waxa uu sii socdaba waddada uu sii lugayaba haddana waxa uu tagay tuuladii ama magaaladii labaad waxa uu haddana kala kulmay arrintii kale ka yaab badan oo magaaladii oo dhan ayaa gubanayso oo holcayso oo dab iyo olol uu ka baxaya. ninkii meeshaas kuma joogin, waxa uu qabsaday asigana baaldigiisii oo wuxuu ka qayb galay dabdamiskii ayuu ka qayb galay oo dabkii ayuu dhinaciisa ka damay. dabkii markii uu damay ayuu dadkii wareystay, bal ii warrama oo arrintiina maxay tahay, maxayse magaalada la gubanaysaa oo idinku dhacay? dadkii waxay dhaheen sidaan ayay u gubataa magaaladeena oo bishiiba mar ayuu sidaan dabka u kacaa oo waa arrin macruuf ah oo lagu yaqaano oo bil kasta hal mar ayay sidaan u gubataa. ninkii arrintii wuu la yaabay, waxaa la yidhi adiga maxaa tahay, xageesa ka imaatay? wuxuu yidhi aniga waxaan ahay nin noocaas ah oo arrintiisa ayuu uga sheekeeyey, waxaan u socdaa nin meesha halkan la igugu soo sheego oo la yidhaahdo shiikh 3 mas'alo ayaan rabaa bal si aan arrintaydan wax uga soo weydiiyo, halka ayaan u socdaa. wuxuu ku dhahay nin wanaagsan baa tahay, haddii aad u socoto ninkaas annagana bal noo soo weydii, magaaladan sidaan ayay markasta u gubataa, arrinteeda iyo xukunkeeda waxa uu yahay bal noo soo wareyso. waxa uu yidhi maad iga daysaan, anigaaba taydii ku dhib qabee tu kale ha igu darinaha. waxaa la yidhi adiga waad wanaagsan tahay, dab kuma haysto, rafaad ma qabtid, waa kaasaa ninkaas fiican u soconaya ayaa tahay, noo soo weydii walaalo. ninkii waa uu iska baxay, safarkiisii uu sii watay, waxa uu sii lugeeyo oo waddadana sii haayo ayaa wuxuu la kulmay waddada dhexdeeda guri ka dhisan. waa yaabay ninkii, waxa uu ku leexday meel buush ama daash sida u taqaan waab yaraysa ama aqal ayaa waxaa ka dhisan waddada bartamaheeda. meeshuu ku leexday mise ninaa fadhiya waddadii meeshii dhexdeeda. waa uu wareystay, warniyow bal ii waran, maxaa kugu dhacay, arrintaadana maxay tahay, sababta aad waddada dhexdeeda inta meel uga dhisatay aad u fadhisatay maxay tahay, bal ii sheeg. wuxuu yidhi niyow aniga meeshaan iskama fadhiyo, macno ayaan u fadhiyaa, meeshaan aniga kama dhisanin, waxaa ii dhisay dadweynaha magaalada ayaa ii dhisay oo si markaas qoraxda kuleelkeeda iyo cadceedda kulkeeda uuna ii gubin, sidaas ayay iigu kor dhiseen, oo aniga waxaan ahay nin dhulka ku dhago oo meeshaan tagaba dhulka ayaa i qabsanayo oo dhulka ayaa igu dhagaayo. arrintaas ayaan i haysato, adiga maxaad ahayd, xaggeesa ka timid? aniga wuxuu yidhi nin noocaas ayaan ahay, arrintiisi uga hadlay, waxaanan u socdaa shiikh meeshaan joogo oo la yidhaahdo shiikh 3 mas'alo ayaan u socdaa, asiga ayaan rabaa bal arrintayda iyo waxa uu xukunkayga in aan ka soo wareysto. wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay, haddii aad shiiqaas u socoto anigana bal arrintayda ii soo weydii iyo xukunkayga waxa uu yahay. saa meeshaan ayaan fadhiya oo meeshaan tagaba dhulka ayaa igu dhagaayo oo dhulka ayaa i qabsanaye, ii soo weydii walaalo. wuxuu yidhi walaalo aniga ayay arrintayda igu culus tahay, tu kalena kuma dari karo. wuxuu yidhi walaalo adiga waad fiicantaa, waa kanaa dhulka kuguma dhagaayo, waad soconaysaa, nin wanaagsan oo lagiis ku soconaya tee, anigaa kaa daran ii soo wareyso. ninkii wuu iska baxay, safarkiisii uu sii watay, magaaladii oo ninkii ku noolaay ayuu tagay. ninkii uu raadiyey, waa uu tagay, waa uu la kulmay, wuu wareystay oo waa la iswareystay. wuxuu yidhi shiiqow adiga ayaan kuu socdaa, waxa aan rabaa 3 mas'alo oo aniga i haysata ee nafsadayda ka turjumayso, iyo 3 mas'alo ee intii aan soo socday la soo kulmay in aad ii macnayso ayaan u baahanahay, oo bal waxa ay yihiin iyo waxa uu xukunkooda yahay inaad ii sheegto ayaan u baahanahay. ninkii wuxuu ku yidhi aniga 6 ma fasiro, waxa aan fasiraa oo kaliya waa 3. adiga marka 3dii aan kuu macnaynayo sheego, ma 3dii dadkii kuu soo dhiibteenaan kuu macneeyaa, mase 3daada ayaan kuu macneeyaa, midii kuu roon samee. wuxuu yidhi maad ii wada macnaynaysid? maya, ma wada macnay karo, haddii kale isku dhex daro 3daada iyo 3 dadka inta isku darto 3 un ka dhige, bal sheeg aan kuu macneeye. ninkii
wax yar ayuu aamusay waa uu fikiray marka wuxuu go'aansaday inuu saddexdiisii meesha ka saaro saddexdiisii waxa uu arkay saddex kale oo ka xanuun badan ayuu arkay marka wuxuu go'aansaday bal saddexdii dadka ay u soo dhiibteen inuu shiiqu weydiiyo wuxuu yiri shiiqow saddexdeydii waan daayay ee waxaan ku weydiinayaa saddexdaa mas'alo bal ii macnay soo day ayaa la yiri mas'alada koowaad waxay tahay uu yiri magaalo ayaan soo maray magaaladaasna dadkeedii waxa ay haystaan uu yiri yani waxyaabaha dhulka lagu qodo ama badiilka oo kale ay haystaan dhulkii qodayaan oo nin ayaa laga soo saaray ninkiin waa nin nool uu yiri bal macnahaas ii sheeg iyo waxa ka dambeeya waxa uu yiri su'aashaas haddii aan ku macnayo waxa ay tahay uu yiri ninkaas dhulka marka uu la go'o waxaad ku dhahdaa uu yiri yaan la qodin yaan laga daba tagin ninka dhulka waxa ku jiro hanti iyo maal marka ilaa uu ka soo baxsado uu yiri asiga uga soo baxo yaana laga qodin uu yiri si uu u soo qaato hantidaas iyo maalkaas ha loo dhaafo yaan laga qodin waa qodobka koowaad qodobka labaad maxay tahay tan labaad waxa ay tahay yiri waxaan soo maray magaalo ayada dhanba gubanayso yiri oo dabka ka caayo markii aan wareystayna dadku waxay ugu dhaheen bishii mar ayay sidaan magaalada ay u gubataa oo dhibkan ayaana haysto saas miyaa yiri haa magaaladaas waxa ku nool yiri nin boqorkaasna gabdha ayaa u joogo gabdhihiisana way qaangaareen gabdhaha ha guuriyo oo rag ha u guuriyo u sheeg yiri arintaas xukunkeedana waa sidaas wuxuu yiri tan saddexaad waxa ay tahay ayadana waxa aan soo maray yiri inta aan wadada soo haay nin wadada dhexdeeda yani bartamaheeda ku dhistay aqal ama waab yar ku dhistay oo fadhiya halkaas ninkaasna dhulka ayaa ku dhagan oo dhulkii kama kici karo meeshuu taga dhulka ayaa ku dhagay waxaan rabaa bal ayadana in ay macnayso waxa uu yiri ninkaas dhulku ku dhagan yahay xukunkiisa ama macnihiisa waxa uu yahay ninkaas waa nin cilmi leh aqoonna ilaahay siiyay dadkiisana aan waxba ka barin oo cilmigiisa qofna aan uga faa'iideynin marka waxa ku dhagan uu yiri dadka ayaa ku dhagan cilmigiisa iyo aqoontiisa dadka waxa ka baro oo waxa uga faa'iideeyo taas markii loogu macneeyay ninkii wuu iska soo baxay waa mahadsan tahay oo yiri wuu soo laabtay jidkiisa ayuu ku soo laabtay ninkii wuxuu ka soo dhacay dhulka ku dhagana wuxuu yiri neeyahow adiga xukunkaada waxa uu yahay yiri waxa tahay nin aqoon leh ilaahayna cilmi sii cilmigiisana cidna aan waxba ka barin cilmigaada iyo aqoontaada umada uga faa'iideeyo wax ku bar marka saas la aligeed ayuu dhulka kugu dhagan yahay oo dadka ayaa kugu dhagan wuxuu yiri neeyahow waa arin wanaagsan arintaana waxa aan ka bilaabayaa waa adiga ayaan wax ku barayaa ninkii sidii ninkii cilmiga ku baray waa uu soo baxay haddana waxa uu yimid magaaladii gubanaysa waxa uu ku yiri idinkana mas'aladiina ama arintiina waxa ay tahay magaaladan waxa jooga nin boqor ninka boqorkaana gabdha ayaa u jooga gabdhihiina way qaangaareen marka gabdhaha ha guuriyo oo rag ha u guuriyo sidaas baa laydinku soo yiri ninkii boqorka ayaa arintii loo sheegay wuxuu yiri ninka halay keeno gabdhahayga gabar kamid ah ayaanu guurinaya oo ninkii sidii ayaa gabadhii loogu guuriyay waa uu soo baxay ninkii waxa uu yimid ninkii dhulka la go'ay adinkan waxaan idii wadaa howr arintiini ama xukunkeeda waxa uu yahay ninkan dhulka marka uu la go'o ama uu la dumo ha qodinaha haga tabadeginaha oo yani hore ha ka qodinaha ninkan dhulkan hanti ama maal ayaa uga jiro ilaa uu ninka hantida iyo maalkan uu ka soo qaato yaan la qodin yaana laga daba tagin adinkana xukunkiina waa sidaas dadkii sidaa ayay yeeleen ninkii dhulkii uu la go'ay ninkii waxa uu ka soo saaray ayaa lagu leeyahay 2 sanduuq oo dahab iyo maal wax kasta oo ka buuxo u dhameystiran yahay ninkii marka uu maqlay arintaas waxa uu yiri ninkii hala ii keeno wuxuu yiri hantidan aan dhulka ka soo helay markii laba loo dhigo dhig ayaad adiga leedahay oo adiga ayaan ku siinayaa hore sidaas ayuuna markuu hantida qaybiyo oo qayb kamid ah ninkii ku siin arinta marka sheekadan waxaan ka fahmi karnaa ama aan ka baran karnaa waa xigmadaas oo ah dadka kugu hareeraysan u ogolow in ay kula noolaadaan oo kaliga
inaad noolaatid ha isku dayin. waxaa laga rabaa waxa aad haysato in aad wax ka bixiso oo dadka aad wax u ogolaato aadan noqonin keligii cune ee wax lala cuno. ninkaas saddexdii arrin ee dhibaatada ay ku haysatay waad aragtaa si sahlan ayuu ku helay. maal ayuu ka cabanayay maal la'aan oo ilaahay waa kaasaa hanti ayuu siiyey. aqoon la'aan ayuu ka cabanayay oo aqoontii iyo cilmigii uu ka cabanayay si dhib yar ayaa lagu baray. awlaad la'aan ayuu ka cabanayay oo waa kaasaa waxa loo guuriyey xaas ayaa loo guuriyey oo waa kaasaa. marka waxay kaa garan kartaa sheekadan ama macnaha aad ka fahmi karto waxa ay tahay waa in aad noqotaa qof wax lala qaybsan karo, qof wax lala cuni kara inaa ahaataa, in aadan noqonin keligii cuno aadan noqonin. waxaadna ka fahmi kartaa sheekadan ninkan sida uu samafalka uu u sameeyey uu walaalihiisa uu ugu damqaday ayaa asigana si dhab yar ayuu wixii uu ka cabanayay ayaa loogu soo macnihii sheekadiisii uu watay si intaan ayuuba ka helayba. marka waxaan idin leeyahay waxa aad haysato walaalkaa wax uga ogolow, adigana cun hana lagula cuno. marka cilmiga aad taqaano wax uga faa'iiday walaalkaa, waxa aad haysatane wax ka bixi. taas ayaan idin leeyahay. waadna mahadsantihiin sida quruxda badan aad iigu xiran tihiin. waan idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina iyo sida quruxda badan ee mar walba aad iigu xiran tihiin. waxaan idin leeyahay jazaakallaahu khayr. fiidiyowga noo like gareeya, noo share gareeya si walaalo kale asxaab kale oo fara badan uu gaaro muuqaalka. haddii aad igu cusub tahay oo aad tahay asxaabteyda cusubne fiidiyowga subscribe dheh, channelka kusoo dhawaaw, gambaleelka furo, minankaada waaye, gabarka qaado yaa soo dhawow ayaan ku dheh.